السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري halkani waxaan idinku wadaa odaygii CR7 ahaa oo afka furtay odaygii CR7 ahaa oo TV laga wareysanayay ayaa wuxuu yiri waxaan dareemayaa in Man United ay khiyaantay wuxuu yiri mar badan baa si xoog ah la iskugu dayay in la iga saaro kalaabka waliba wuxuu yiri macalinka kaliya ma ahayn rag kale oo iyaguna kalaabka ka agdhow oo maartay dadka wax ku leh ama ka shaqeeya ah ayaa arinta ku jiray wuxuu yiri CR7 waxaan dareemayay inay dad badan markaan imaanayayba ay ka xumaayeen Manchester United oo aysan rabinba marnaba inaan kalaabka ku soo noqdo ana u ciyaaro sidoo kale wuxuu yiri ciyaaryahanka ninka Erik ten Hag la yiraahdo xishmada uma hayo waayo isaga laftirkiisa ima xushmadeeyo xishmad ima siiyo qof aan aniga xishmadeynaynin weligii wax xishmad aan u hayo ma lahu yiri CR7 erayada markuu sheegay wuu xanaaqsanaa sidaad ka garan kartaanba ciyaaryahanka wax badan baa ka xanaaqsan kulli waxaan u maleynayaa ninka ciyaartu u diidayo sidaa darteed buu la xanaaqsan yahay sidoo kale Cristiano Ronaldo wuxuu yiri sidaan ooga tagay maartay sidoo u tagay Sir Alex Ferguson wax isbedelay ma yiri marka Manchester aan imaanayeen wuxuu yiri wadnahayga isoo waday sidoo kale Sir Alex Ferguson ayaa wuxuu yiri ma aadi kartid macquulna maaha inaad Manchester City aado kadib waxaan ku yiri okay boss Manchester United ayaan imaanaya sida halkan ka muuqatana Cristiano Ronaldo macalinka kaliya wuxuu ciilka u qaba ma ahane wuxuu leeyahay halkan macalin ka soo bilaawata ciyaaryahanadii wax isbedelay ma la dadku ciyaarba isaga jiraan marka ciyaaryahanku saad ka garanaysaan aad buu u xanaaqsan yahay erayadiisu ka waran ninku leh Sir Alex u tagay Manchester United wax progress ay sameynayso male meel ay u socoto male wax isbedel ma jiro yaa waxaana aad arkaysaan dhammaan wuxuu leeyahay waa joog waa ciyaar waxba kama jiraan sidoo kale ciyaaryahanka markii la weydiiyay mustaqbalkiisa wuxuu yiri nin buu hadalkiisu ku qabsaday oo wuxuu yiri nin buu ku hadal qabsaday oo wuxuu yiri marka hore waa ina burburisaa buu yiri si ay dib uga dhisto aniguna in hadal la igu bilaabo maartay dhismaha hadal la bilaabayo in anigu ciyaaryahan la igu agdhiso wuxuu ma oo qabo yiri laakiin kalaab intan oo kala leeg wuxuu u qalmaa inuu maartay top uu ka dheelo oo maartay meel sare joogo hase ahaatee arinta ma arko in hadal la sameynayo ayuu yiri wax excuse ana ma jiro ayuu yiri CR7 hadaladiisu caawa inta ay ahaayeen kuwa xanaaq iyo dharas iskugu jira ayna ahaayeen waxa ka leeyihiin akhyaaray ninkani miyaa laga khaldan yahay mise asaga ayaa waxba aan arkino maartay geemka loo diiday ayuu ka careysan yahay wixii commentiga hoos ilagu wadaag salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh